cusub inuu yahay faaraxa nala fadhiya faarax waad maqlaysaa ninka hadlaya waa Abubakar Maxamed Shire waa gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee Gaariso oo leh waaba la ogaaba waxaan inay dhacayaan Cabdirasaaq horta meelaad ogtahay horsaad ogsoon tahay dhowr beri ka hor arrintii ugu weyneed oo Kenya laga hadlay hadda waxay ahayd dhibaatada corruption-ka iyo fasaadka uu keenay musuqmaasuqa uu keenay oo madaxweynaha 5 wasiir oo asaga dawladdiisu asaga u magacaabay golaha wasiirahana waa 18 markii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laga bixay 18 kala weeyaan wuxuu soo reebay 13 kali 5 buu shaqada ka saaray 174 saraakiil kale mas'uuliin kale ayaa iyagana shaqada ka fariista leeyahay boqol iyo xogaa kalena waa lagu soo socdaa hawsha way socotaa horta annaga cudurka ugu weyn oo wadankanayto baabi'inaya waxa weeyaan wax la yiraahdo corruption musuqmaasuq iyo daroogada hadda waxa weeyaan waxaan noqonay meeshii bedeshay South America oo aan noqonay transitkii meeshii la marinay markii Yurubka iyo meelaha kale iyo Mareykanka loo wada intii laga keenay Afghanistan iyo Pakistan iyo maxay South America laga keenay la marinay cudurka saddexaad oo asagana nala fariistay oo nala degay waxa weeyaan waa arinta argagixisada iyo nabadgelyo la'aanta wadanka laakiin aaska hooyada cuduradan aan ku sheegay oo dhanba waxa weeyaan musuqmaasuqi oo ninka sargaalka oo askariga ah oo meesha jooga hadii al-shabaab uu soo qabto maanta oo lacag loo keeno lacagtu uu xilinayaa soo oginayo al-shabaab ay buu sidaynaya ninka tan asirdoonki la helana faarax sirdoonku waan ku soo wareeyay arinta sirdoon oo la helo oo la leeyahay heblaan la weerari maalin heblaana la weerari waa runtii aniga hadda way u cusub tahay Maryan waa maxay ahayd iyo Abubakar ba mas'uulka horeeya oo sheegay Maryan iyo Abubakar ba waa laba qof oo mas'uuliin waaweyn oo runtii aad ma adaladooda loo aaminayo waana wax kulli soo bixi doono oo hadda baaritaan adag lagu sameyn doono oo xagga dawladda ay daba kici doonto laakiin waxaan kulli musuqmaasuq iyo leesinimo midda marka aan halka sheego ana wax kaaga sheego waxa tiraahday al-shabaab maxayan u galeen Ethiopia hadalkii hore horta al-shabaab iyo Ethiopia xiriir baa u dhaxay xiriir ku dhaxayna garanay way taa muhiimna ma sugurteenaysaa hadii dhageysaade ma iska xiriir ku dhaxay waa mid la kala cabsanay inay tahay iyo mid kale inay tahay anaga ma garanay hal goob ay iskaga hor imaadaan ma jirto markay baydhabo soo galayaan ciidamada Ethiopia iska kala baa loo turjumay laakiin lama dhihi karo faarax ma daana ku sameeyay dhageysaade xiriirka cabsida la kala cabsanaa hata xiriir been qoon kartaa adigana hada dawladda Ethiopia ka mid sargaalka Sacuudiga iyo meel kale matiida ma waxaan diidanaa waxaan hubinaynaa inaad ka sheegno ma wax baa jira oo ku sheegaya waxa weeyaan wax waa too many coincidence weeyaan ma dhacday badan oo isku mid oo isku si u dhacaysa mar kastaba waxa weeyaan maanta gobolada neeto aan ku sheegay fiiri doolo waxay degan yihiin balad way joogan doolo bay joogan luuq bay joogan ciidamada Ethiopia maga garbahare iyo baardheeri iyo meelaha koro agaarkeeda iyo bu'aali iyo oo aan meel u jirin ma tagayaan kuwana lagama yaab inta ciidamada u tagaan inay weeraraan cabsi lama dhihi karo miya madaba waa ku waxba ku sheeg waxba jira baan ku yiri adi cabsi bas ka fasiro ku kala wax kala u fasirto gaarsa ku soo noqonayna farax Jabuuti la ha ku daro Jabuuti ay gudulaay